kulan aad u ballaaran oo lagu taageerayay dadaalada lagu raadinayo nabad lagu soo dabaalo gobollada Jubbooyinka oo ay soo qaban qaabisay jaaliyadda gobolladaas ka soo jeeda ee ku dhaqan dalka Norway ayaa ka dhacay magaalada Oslo ee caasimadda u ah dalkani Norway. kulankan oo ahaa mid si hufan loo soo agaasimay oo dad aad u tiro badan ka qayb galayeen ayaa guud ahaanba la isku hoga tusaaleeyay sida ay lagama maarmaanka u tahay in la garab istaago oo la taageero dadaalada hadda socda ee lagu raadinayo in gobollada Jubbooyinka iyo Gada loogu sameeyo maamul loo dhan yahay oo ka shaqeeya nabad ku wada noolaanshaha bulshada iyo horumarka gobolladan oo ay daashadeen dagaallo ba'an oo naafeeyay Soomaaliya iyo taageerida Prime Minister Abdi Faarax Shirdoon taageerida dawladda Kenya oo iyaguna naftooda u soo huray dalka Soomaaliya si ay u badbaadiyaan iyo ciidamada Soomaalida intaas kadib dabcan waxa aynu nahay ummad muslima markasta oo meel isugu yimaada ama gorol yimaadana waxa habboon in la xuso Rabbiga subhanahu wa ta'ala waxaan halkan aan iman doona Abdullahi Maxamed oo ah شيخ نمر دون أيضا قرآن الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم kadib furtaankii xafladda ayuu gudoomiyaha guddiga nabadoonnada ee gobollada Jubbooyinka ee dalka Norway nabadoon Cali Baadiyo halkaas ka hadlay marka hore waxaan u mahadcelinayaa dadweynahan ka soo qayb galay shirkan Jubbaland ayagoo u dhashay deegaanka aad baan ugu mahadcelinayaa marka labaad waxaan u mahadcelinayaa odayaashii iyo dhalinyaradii isku soo duway shirkan inuu qabsoomo oo fursad noo siiyay maanta Jubbaland deegaanka dadkii u dhashay inay meeshan isugu yimaadaan tan kale waxa weeyaan shirka Abdi Faarax Shirdoon ayaan ku taageeraynaa maadaama xil culus loo dhiibay inuu xilkiisa Ilaahay ku garab galo waxaan u sheegayaa dadweynaha meeshan ka soo qayb galay shirka inuusan ahayn shir qabiil uu yahay shir deegaaneed oo la doonayo in looga hadlo Jubbaland maamulkeeda inay ayada samaysato oo cidna aan ku soo faragelin kadib hadalladaas uu jeediyay Cali Baadiyo waxaa isna hadallo mahadnaq iyo hambalyo uu ku taageerayay ciidamada dawladda kuwa Raas Kamboni iyo waliba kuwa Kenya halkaas ka jeediyay injineer Umar Sheekh Maxamuud oo sheegay in gobollada Jubbooyinka gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose iyo magaalada Kismaayo ay u baahan yihiin nabad waarta ciidamada huwantuna ay yihiin kuwa dhalin kara nabadaas oo uu deegaanku u ooman yahay horta marka hore soo hambalyeynaya waxaan u hambalyeynaya nimanka ciidamada ah khaasatan ciidamada Kenya Raas Kamboni ciidamada federaalka Soomaaliya oo dhiig iyo maan iyo waqti juhdi badan u soo galay si ay maanta ummadaas deegaankaas Jubbaland ay nabad ugu noolaan lahaayeen marka taas waxaan leenahay hambalyo waxaan kale oo aanu taageerin buuxda aanu tusayna ama aniga shakhsiyan aanu ku taageerayo maamulka maanta ka soo iftiimay Jubbaland saad ogtihiinba waqti badan baa dhibaato ka taagneed waana meelihii ugu dhibaatada badneed Soomaaliya waxaa lagu yiraahdaa wadnaha nimankiinan haddii aad tihiin reer Kismaayo waxaa la dhihi jiray reer Kismaayo dad badan maaha waa Kismaayo ay dhibtaan iyo maalin walba ma aragtay dagaalkan iyo shidadaan ay u jirtaan runtii maantay taasi waa dhamaatay ma ahan dad dhibaato ma aragtay meel la aada dad ku duula ma aha waxa ay nolosha ay ka rabaan qof kasta uu xaq u leeyahay bay raadinayaan waa inay nabad ku noolaadaan waxaanu leenahay nabadda idin iftiintay qabsada
oo adkaysta. sidoo kale waxaa isaguna halkaas hadalla qiimo badan ka jeediyay Abwaan Cabdi Magan Cirjiir oo ku dheeraaday inay khalad tahay in si aan habboonayn loo agaasimo maamul samaynta gobollada dalka oo qaarkoodna loo fasaxay inay iyagu soo samaystaan maamulkooda kuwa kalena la isku dayo in laga hor istaago xitaa nabadii lagu soo dabaali lahaa. Cirjiir ayaa ka hadlay taariikhda dhibaatada badan ee dalka Soomaaliya asagoo oo ku nuxnuuxsaday in waxyaabo badan oo xun oo laga xishooda ay ka dhaceen dalka wuxuuna isagoo hadlayay yidhi السلام عليكم. أنا محرر إن قضبة يراو دعوة كهلا. قضبة تاريخ. قضبنا وحوي حال كمان سلوية هاي. يو محاولة بعض أنا شيء إنه محاولة مسؤولين تقصد النظام كقصد حتى أن أهين في ملجأ كأهين وتنقو قاتي تاريخ ما رأينا كهلا. تاريخ ما كهلا وحي تاي. دولتي كعانك الله ونحساسيات الروح جاميني ururo siyaasi ah ayaa ku kacay oo la dagaalay hadii dawladda meesha ay ka baxday waxa cadaatay sanadkii uu horeeyay kadib in meesha marka hore dadku aysan hadaf iyo mabda aysan maxaan kula ay qoriga u qaadan ay u qaateen fikrado iska raqiisa oo qabiilku xoog ku leeyahay okay waa la dagaalay waa la islaayay waa la isqixiyay dhibaato badan baa dhacday waxay la gaaray heer lagu faano maxaan ku dhahday nin hebel gurigiisii waxa haysta nin hebel hantidii hebel baa haysta qabiil hebel baa duulayo waxay taabsadeen qabiil hebel reerkiisii in macnaha qolo intay duusho Soomaaliyeed qolo kale ay barakicso meesha ka qaadato inay ku faanto annaga duulay annaga reer hebel ka qaadanay deegaankoodii inay ku faanto in heerka la gaaray noqotay Cirjiir oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in nidaamka federaalku uu yahay nidaamka kaliya ee Soomaaliya u keeni kara nabad waarta wuxuuna sharaxaad ballaaran ka bixiyay sida uu u shaqeeyo nidaamka federaalka iyo waliba waxyaabaha looga baahan yahay iyo waajibaadka saaran dawlad goboleedyada iyo midda federaalka iyo doorka ay dawladda dhexe ku leedahay guud ahaanba maamulada kala gedisan ee dalka federaalku waa arrin ay keentay dhibaatadii iyo xanuunkii aan isku sameynay ay keentay kala shaki badan baa markaa yaa yimid waxaan rabaa marka micnaha federaalka inaan micno yar aan ka taabto nidaamka federalismka waa nidaam dawli ah oo leh dastuur qoran kaasoo awoodaha u qaybiya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada labada nooc ee maamul waxay xaq u leeyihiin inay ku shaqeeyaan waxa uu ogol yahay sharciga dastuurka dalka u yaala waxa kale oo nidaamka federalismku dhigayaa in marka ay timaado wax ka bedelka dastuurka laga helo ogolaansho labada qaybood ee maamul ee aanay dawladda dhexe xaq u lahayn inay iyadu wax ka badsho mabaadi'da asaasiga ah iyadoo aan la tashi aan samaynin nidaamka ama hadafka federalismku waa hab meel dhexe iskugu imaansho ah laguna xakameynayo awoodda badan ee dawladda dhexe laguna abuurayo maamul goboleedyo ee aan ka madax banaaneyn dawladda dhexe balse leh shuruuc iyo nidaam daakhili ah oo ayaga u gaara federaalku in uu yahay daawada maxaan ku dhahday ummadda Soomaaliyeed waqtigan xaadirka dadka intii isku deegaana maxaan ku dhahday ay maxaan ku dhahday isqaabisho maamulkeeda ay samaysato laba gobol iyo wax ka badan sida dastuurku leeyahay taa in laga ambaqaado waxaan rabaa in taa iyada la dabaqo oo aan gubernatoriyaal aan loo soo magacaabin laga soo diray maxaan ku dhahday caasimadda laga soo diray iyo gudoomiye DCL inaan loo soo magacaabin oo anagu aan ka shaqo oo aan dawladda federaalka Soomaaliyeedna waxaan ka doonaynaa kaalinkeedii taageero iyo wixii tariiq farsamayn ay lagu soo darsato way naga go'aantay inaan maanta aan tashano oo ku tashano waxa dastuurkaas la dhigtay oo inoo ogol yahay hadalladaas uu jeediyay ka sokow Abwaan Cirjiir halkaas ka tiriyay gabay ka hadlaya arrimo badan isagoo gabaygaas kula dardaarmaya baarlamaanka Soomaaliya wuxuu yiri socod baarlamaan iyo siyaasiyo kartilahow umadu waxay u siman tahay sandareeraha u bixin sixirkii iyo qabiilkii Soomaali kala dilay ka fogow suugaye mushaaraha sabba ahayn hasaluuni waadana dalkan dib u dhiskiisii hawlaha silsilada safka hore ka taagnow bakhayl gacal ma soo leh sakhi noqo dadka wuxuu runtana suuqa ka cadeena waan dhihi lahaa dadkii iyaguna kulankan ka hadlayay waxa isaguna kamid ahaa oday isagoo ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka oo si aad isu weydiiyay waxa goboladan oo leh taariikh mug weyn
oo soo jireena geliyay muranka wuxuuna isweydiiyey sababta keentay in dadka Soomaaliyeed oo idil ay wada sheegtaan gobolkan. waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta gobolka Jubbada Hoose. farta hadda meesha ay saaran tahay Jubbaland dhan wada ahna waa Jubbada Hoose. aniga waxaan ku dhashay Jubbada Hoose, waxaan ku koray Jubbada Hoose, 20 sano waxaan ka shaqeynayay Jubbada Hoose. weli shaqada waa ka tahay shaqada ugu aqoonta badan dadka iyo dalka ayaan ka shaqeynay. waxaan ahay municipio tuula ama degmo Jubbada Hoose ay leedahay oo aan ka soo shaqeynayna ma jirto. Jubbada Hoose waxay ka kooban tahay Afmadow, Badhaadhe, Xagar, Jamaame iyo Kismaayo. waxaan isweydiin leh oo la yaabanahay ilaa 60kii markii calanka la qaatay Jubbada Hoose waxaa ka soo galay baarlamaan. waxaana soo dooran jiray dadkii deganaa oo dad kale ma soo dooran jirin. waxaana ku tartami jiray Jubbada Hoose dadkii deganaa xildhibaanadooda ayaa imaan jirtay oo ku tartami jirtay. dadka hadda sheeganaya Jubbada Hoose markaas xagee jireen miyay qaban su-aasha gobolkaana waxay tahay baarlamaan waxaa leedahay aqoon leh hala keena. waxaa la keenay 275 baarlamaan oo laga soo xulay 18 gobol oo Soomaaliya iyo qabaa'illadooda. waxaa la yiraahday Jubbada Hoose ayaa laga wada hadlayaa ee xildhibaanada Jubbada Hoose yimaada 235 xubnood soo fadhiisatay. waayo 18 gobol ma 35 baarlamaan ayaa ka timid kasbaatiga 230 xubnood. arrin kale oo uu ku tilmaamay wax lala yaabo waxay ahayd qayladhaanta ka soo yeedha dadka Soomaaliyeed iyagu ka soo horjeeda soo gelitaanka ciidamada Kenya ay soo galeen dalka Soomaaliya iyagoo ka mid ah ciidamada nabad raadinta ee AMISOM. anta gudbo waxaa la yiraahdaa wadanka waa burburay isma aaminaya ciidamo AMISOM ah oo nabad ilaalin ah la sameeyay. Uganda timid, Burundi timid, baydhabo waxaa joogta Itoobiya, Kismaayo waxaa timid Kenya. انت كرعت هذا يسألك ميس وحال هذا يأكل سوايكني إيو كينيا وإثيوبيا بوروندي أوغندا بالصومالي بقى والسويدين هنا والسودان. kulankan oo gabi ahaanba dadkii ka qayb galay ee hadallada ka jeediyay halkaas ayadoo tilmaameen baahida loo qabo in si cadaalad oo isku mid ah ay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada Jubbooyinka ay uga faa'iideystaan ifaalaha nabadeed ee ka socda gobolkan iyo kheyraadkiisa. ayaa ku booriyay madaxda dawladda federaalka inay garab istaagaan gobol kasta oo doonaya inuu samaysto dawlad goboleed ku salaysan nidaamka federaalka ee u degan dalka Soomaaliya iyadoo aanan cidna la dulmayn isla mar ahaantaana ay madaxdu raacayso sharciyada u yaala dalka. ummadda Soomaaliyeed dhibaatay soo martay, dhibaato badan bay soo martay, wax la koobi karo oo af lagu koobi karo ma aha. waxay soo mareen haatan waa la doortay waxaa la idin doortay inaad ummaddaas ku hogaamisaan, aad hogaamisaan Soomaaliyeed, cadaalad aad ku hogaamisaan, aad sinnaad ku hogaamisaan, wadajir aad ku hogaamisaan. wixii ay soo mareen oo ay dhibaatada ay soo mareen inay idinkaga baxaan. waxaana intaas idin gaarsiin kara wax Soomaali ummadda Soomaali waxay u baahantay cadaalad iyo sinnaan baa deeqda maanta inaad iyaga ku hogaamisaan. waxaana lagu hogaamin kartaa idinku shuruucda ku dhaqma sida dastuurku uu dhigayo in lagu dhaqo ummadda Soomaaliyeed. taas ayaa mataqaanaa baa ku hogaamin kartaa. ummadda Soomaaliyeed way isnacday, waa isdishay, waa kala tagtay, carruurtii iyo haweenkii baa la laayay. waxay isugu imaan kartaa waxa weeye waa federaal, waa iyada qolo walba ay gobolkooda dhistaan ay maamushaan kabacdina wixii xuquuqda dowladda dhexe ay leedahay mataqaanaa loo daayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام كلي waxaan maleynayaa maanta waxaan wadada isugu yimid halkan waxay dhamaantood taageertay nabadda ka dhacday Jubbaland. arrinta ugu muhiimsan oo inaynu ka hadalnaa ay tahay waxa weeye saan anu qabo in loo tahniyadeeyo halyeeyadii guushan ay maanta ku taameeno iyo dabaaldegan soo hooyay halyeeyadaas oo ah xooga halgamayaasha Ras Kamboni iyo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya. kulankan oo uu hadafkiisu ahaa in lagu taageero guulaha nabadeed ee ka soo muuqanaya dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada Jubbooyinka ayay guud ahaanba dadkii ka soo qayb galay isla meel dhigan inay lagama maarmaan tahay in la garab istaago ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ee dadaalada ugu jira inay dalka Soomaaliya ku soo dabaalaan nabad waarta.
laakiin waxay dadkani ka digeen in dalka lagu maamulo musuqmaasuq iyo cadaalad darro taasoo ay sheegeen inay keeni karto dhibaato hor leh oo dalka ka dhalata mid ka mid ah dadkii halkaas ka hadlay oo sheegay inay muhiim tahay in la garab istaago cid walba oo Soomaali ah oo la timaada nidaam dalka lagu dejinayo ayaa yiri isagoo hadlaya dowladda hore baa looga hadlay qof walba hadlay uu ka hadlay kaalinta kaga aadan maamulkan waa wax iska cad weey haddii wadanka qabsadeen hawl dowladdu qaban lahayd oo dastuurka ku qoran waxa weeye kaalinta kaga aadan waa inay u mahad celiyaan tala iyo tusaale waxay hayaan ay ku biiriyaan maaha in la hor istaago la yiraahdo maamul anigu aan soo dhisin meeshaan ka dhismi maayo taas waa damac kale way ma soconayso kismaayo waxay la mid hadda ma dhalan gobolada 9 gobol bay ka mid ahayd ummad baa degan Jubbaland gobolada Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose iyo Gedo intaba haddii la federal la qaato وين لو تهيأ أمتها دجال بطلع أمتها دجال معمول بيوصلين يعني معمول هنا حقول بيلا وصيله كله وتغيير إن قبل كسر أو معمول تذك ويوصلين يعني معمول قبل وصلين سيد أحد قارن كوديجايو dhinaca kale waxa isaguna halkaas ka hadlay Cabdullaahi Ciise Wagad oo tilmaamay inaysan suurtagal ahayn in gobolada Jubbooyinka maamul looga soo sameeyo meel kale iyadoo ay joogaan dadkii u dhashay gobolka beeraha degan gobolka Jubbooyinka waa la yaqaanaa maamulka Jubbada hoose annaga soo dhisayna inna ka yeelin cidaan ka yeelin ma jirto nin degaana nin kale inuu imaado kuwa malgobkiisa waa arrin khalad ma dhacayso hore hadii uu dhacday hadii sandeen waa dhacday in Jubbada hoose marka la qabtay dad badan ay guuxeen maxay u guuxeen sababta ay u guuxeen maanta gobolka Jubbada hoose waa gobol isku filan guntii iyo gabagabadii ayuu abwaan Soomaaliyeed oo kulanka ka qayb qaadanaya halkaas ka jeediyay gabay qiiro leh ummadii gadood baa galiyo geelan tirade nin waliba geestu u wado waa si gooniya haddaan isla garanayn midnimo looma geed helo Soomaaliya ka gudub taad gashay waa kafiya abi Soomaaliya ka gudub taad gashay waa kafiya abi beelaha gadoodiyo haddii loo garbaxa hawsha xal ku raacan garsoor iyo haddii odaya loo geeyo كدين كذا حاجة حتى حاجة مرن بالك على الكتاب والوقاية أرن كي بيرجع مربوك بكبوهاي مرن بيكوتشية كاكوان كافيه عذري وحسن لكم وبا مركي مرن كيتشاي وحسن لكم وبا ممكن مركي مرن كيتشاي كدي جيب الصومالي كبي أهانتين نمان كرشكيني واحد قرب كسيسام كلن قبل نمو واحد كذب عليك تام كرنيك فيه كنت على واحد كره حمبارتام كعب يوال يواحد شعبكم أتام كي يجان لهين يواحد يعيدكم بتاعه كرف عن الكرني واحد دين تكريسان أنت صوب سوقا هتي بوري لرويتي محين ركوب حتى ولا يكون كراي isku soo wada duubo ujeedada ugu weyn ee kulankan loo qabtay ayaa ahayd marka ugu horeysa in loogu hambaliyeeyo madaxda dawladda Soomaaliyeed iyadoo la muujinayo dareenka culus ee ku wajahan baahida loo qabo dawlad cadaalad oo wada dhaxaysa ummadda Soomaaliyeed waxaa sidoo kale ka mid ahaa ujeedooyinka loo qabtay kulankan in lagu muujiyo taageerada aan kala xarka lahayn ee ay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan tan ku dhaqan Jubbooyinka la garab taagan tahay ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ee ku hawlan nabadeynta dalka عمر عبد أفي Universal TV Oslo Norway كدال شعبي